wax walba video aan ka sheegayo haddaan horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkaan ku dhaaranaa. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa salaamantiin dhammaantiina meel kasta adduunkaaga joogtiin waxaad ila wanaagsan ahi videogan waxa waaye video xamaasadiisa iyo wax walba wato waaye. videogan anaga intaan soo fadhiisanin ka hor wallahi been ma idiin sheegay ani laba rakac soo dugti maxamuud laba rakac soo dugti gacanteedana waxaa ku jiro kitaabka ilaahay. wax walba video aan ka sheegayo haddaan horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkaan ku dhaaranaa wax walba si ilaahay la ogyahay aan u sheegaa. midda kale yani maaha waa ogahay social media inaysan maxkamad ahayn laakiin arinta waxay gaartay heer meeshii ugu dambeysay. sax ma fahmaysaa? sax marka ma ahayn in meeshan la keeno laakiin sidii dad badanaa ku wareeray arintan yani dad badanaa falanqeeyay dad badanaa say rabaan yani nin walba fikradiisa kusoo bixiyay sidaa loo cadeeyo annagana wixii ana ognahay ilaahay nala og maalinta qiyaamana waa la imaanaa maalin oo yawma laa yanfac maalun walaa banuun waa la imaanaa oo adi iyo adoo qaawan dhididkaaga nin walba sidii ilaahay uumay waa la imaanaa haddaa yacni oo annaga wax qaldan sheegno siday wax u dhaceen aanan u sheegin maalinta qiyaama imaaneen. kitaabka waa kana maxamuud wallaahi billaahi tallaahi ilaaha i jeedo hadalka aan sheegayo haddii hal been aan ku daro maalinta qiyaama aa laysoo istaajinaa ilaahayna waa ii jeedaa ilaahow kitaabkaa ku dhaaranooyaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan sheegayo waa run. adigana waxaa ku dhaaranaa gacanteeda waa xoogaa waa arki kartiin waxaa ku dhaaranaa waxaan sheegaya hal oo wax oo beena inaan ku dareen kitaabka ilaahay quraanka kariimka waa arkaysiin. marka kitaabkan inta video aan dhameynayno intaas noo yaala wax been aan sheeg marabna anaga. horta sheekadan waa la socotiin dhammaantiina qof aniga xaaskayga ahayd sidoo kale waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax banaan tahay. arrintan markii ay social media saas soo gashay aniga saa idin sheega waaye marka horena saa idin caddeeyo waaye gabadhan marka hore aan shukaansan jirin aan isbarani wax ay ii sheegtay ciyaal inay leedahay nin ay kala tageen ama asqabi ma jiro ilaahan ku dhaarta ilaahana ii jeedo. sidoo kale waxaan arkayay dad badan dhahayaan kamaal gabadhan waa sixradi. horta qof ilaahay ku xiran sidoo kale ilaahay yaqaano sixir iyo wax mala awaal ah wallahi inaan isku dhaqaaqaynin aan hubaa aniga kaba soo qaad yani qof yani wax iska dhahawaay xaqiiqada may horta waxayna ka dhaharaa taas sixirka haddii aas noqdo ma aha taas ma ku saabsan shahaado zuur yani qof waxa ogeen qiila waqaala qof aa ku soo dhahay ama qof aa ku soo tuhmay qiila waqaala yani ahadiista iyo kutubkana wuxuu sheegay waa ogtahay si fiican ha ana ma kula xisaabtamay ninkan ma kula xisaabtamay yani adi ilaahay sax waa. marka su'aasha waxay taagan tahay ma gabadhan kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama la soo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga ma ogeen. sidoo kale sheekadan hadda in aan la soo fadhiisto anoo wax walba xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadino xogyaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda. baryahan dhan anaga wallaahi been ma idiin sheegay ma seexanin ani maxamuudna xali dhan ma seexanin anaga waxaa raadinayna keliya xog rasmi ah xog xaqiiqi ah waxa lanoo sheegay kulley waxaa la lahay 100 qof been ma isku raaci karto masti hal eray ma isku raaci karaan hal eray ma isku raaci karaan. marka wax walbo ku saabsan xogta aan helnay maxamuud aa ka sheekeyn doono sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa. marka maxamuud aa u wareejinaa wallahi been ma idiin sheegay video aan duunan balakoonka joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma malaysan kartid sababtoo gudaha mugdi waaye nalkiina waa naga halaabay. marka hadda aa rabaa maxamuud inaan u wareejiyo waxa ilaah la ogyahay as ogyahayna anigana as ii sheegay aan ku raace asiga ka waramaayo. soo dhow maxamuud. soomaaliyeed meel walba joogto dhammaantiin way salaamayaan. horta arrintan cirka isku shareeraysay dad badan يعني سومالي oo dhan ba dheh way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xoogaa jaakada iska soo bedelay horta sidoo ilaahay ila ogyahay arinta uga hadlaaya kamaalna yani waa la hadli karay arinta waxa sameeyay horta anaa sameeyay
xiriira waxaan sameeyey inaa yani dadka ayada relativekeeda ah inaa xiriir la sameeyo oo yani raadiyo habeenkii aana seexanin marka kamaala u bandhigay marka kamaala waxaan dhahay arrintan saan loogu hadlooyo marka ma adina raadisid information marka wuxuu dhahay gabar ani yani idhahoyso oo dhaariyey oo ani idhahoyso yani ma qabo yani mana lee qabo ciyaalna ma dhalin yani gabar waa og tahay cidlamaa ugu tagaa way dhahay marka ani marka danta waxay u qasabtay inaan ani raadiyo keligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kale oo walaalkay maxamed la dhahay isna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badan ay istutusnay dad marka Facebook dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaas raadiyay mustaqaaniinaan lahay ilaahay ma kula og yahay dad ani waxa raadsanay oo mas'uuliyiin ah marka ilaahay ma kula og yahay wuxuu dhahay ilaahay waa ila og yahay hadaa rabtid waa sheegi kartaa yani wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan hadana waa ka soo tagay nin kale waxa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax ii fahansiiyay gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arintii waxa ila sii noqonayso hurdada waa iga sii tagaysay ma fahantay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arintii waa yani arintii meeshii horta xaqiiqada meeshii ka soo baxaysay dadka dhan been hadana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eeda kala jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed farxiimiya farxiin la dhahayo maleena farxiimaha habareerteed waa la hadashay adna ana la hadlay farxiya la hadlay waxa la hadlay eedo xumburo in la dhahayo maleena ayada cambaro la hadlay wixii dhan qof yani haduu ciyaalnimada ku yaqaanay xitaa waxa ku dheelayso sheegaya ma fahantay marka wax aqliga galaya la rabaa markii dambe arintii marka saas u ogaaday ee cadaatay kamaala marka waxaan dhahay niyo horta wallahi waa ka shakiyay ana waxaas dhahay kamaal arinta mislu ogyiin wallahi oo billahi habeena kurbeysna inaan isla ogeey maxamuud ma waa ogaaday markii isina aniga marka maya ilma rajisoo kala xarag ku xiran yahay aniga inaan guuliso maxamuud aqli loo baahan yahay ma sax waaye laakiin hadana waa raadiyay hadana yani dadkii kala familygii kala waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mar isla hadalnay yani kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa aan waxa u fikiray xoogaa maskax ahaan ma loo haystaa markii dambe arintii dhanaaso yani arintii dhan markaa soo ogaaday marka waxaan dhahay niyo kamaalo saana jirto arinta dhanna waatana hadda adi indhaha istiraysid ma sheegi karo fahme waxa familka hooyada aabaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arintan fiiri arintii marka kamaala ku soo wareejiyay kamaalkii marka waa fahmay kamaalkii ama kaaga ku noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii uu dhaho ani igu sameeyay waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arintan waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo يعني مقع إلهي كوين داري تكتي أرنتي مركا حقيقتي وحي أسو وقاعد information كذا حتى وح على شيء كرين يعني حقيقيين كدن أو حاجرته وح أو family issue أو وليبو top secret مركا أسو وقاعد أيضا قالوا سعودي فهمتي مركي الدنبع يعني الحمد لله أفكار ذيك قرأتي فهمتي مركا كمالنا مركا اسميش أسو قنعي مركا أرنتا kamaala u sheegay arintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka kamaala marka waxaan dhahay arinta ka hadal marka ina ka hadashid ay sheegtid waay wixii bayaan yani wixii oo aragtay ilaahay kula og yahay sax waa aniga waxaan qarnay ma sababto hatta video aan duuban daqiiqadooyin xitaa nus saac marnaba daqiiqadooyin kadib isla markii video cadeynta waan soo fadhiisay wax la qarnayo ma jiro laakiin markii hore qofka adiga xaaskaaga hadii isku dhaho aniga ilma dhalin waliga wax soo mareen waa aamineen صح ilaa qofkan marka shukaansiga wajiga muu qoran maxamuud hadana mid kale dadka fahansiinaya jirto marka la dhahayo qofkan yani hiblaayo wasaana ku sameysay yani ma dhihi karo
يعني adoo qof weyn ayna dhahdina yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yani waay qofkan haduu dhihi lahay waxayse public soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen arintaas shaki waa dhalin kartaa asi xitaa shaki waa ku dhalin kartaa ina ka yani taas ina xisaabta gelisay ahayd qofkan waa shakin karaa cadeen tus wax itus itaabsiya jirto cadeen tus waatana cadeen laakiin hadaa dhaho يعني قف كان أسعد علي أسيجن قدوه ما دلين يعني confuse عن قناة ما فهمته مركا أرنتنا وحاف في عن مركا حير كان أكل مريس إتوسي أو إتابسي مركا ملا الرابع إن على هذه يعني ملا باهنين مركا أدنى يعني وكو قرابة يعني يعني أو عيال قف يعني عيال دفيريسو يعني حوجا وحنا قناة وحلا ياب له dadka ay la yaabayaan oo qof bini'aadan sameeyeen kullee wixii ku kalifay anaga ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaa soo ogaanay yani wax laga talaabsan karo maaha wax laga socon karo maaha wax in dadka loo bayaanay u baahan waaye sida la ajligeeda oo soo fadhiisanay oo arinta sida saxda ah u jirto oo aan ilaahay ila og yahay ninkana ilaahu ila og yahay marka idin la soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka ani wax la dhihi karo ani ma aqaani marka kamaal ay u taalaa horta intaas waxay ka dambeeyay maxamuud dad badan la hadlay dad badan wax uu cadeeyay ilaa haddana waa isla xiriirina ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas ma sha Allah si fiican ay wax walba iigu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore koow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyay sababtoo ay qof ciyaalkiisa ingiriiska ka galay waxa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamada aan weydiiyay maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday laakiin waxa huwa ay dhahday in ay ciyaalka ayada dhashay waan laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayday dhahay way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ii sheegtay waa aniga arintaas waa gaabsana laakiin arinta muhiimada waxa way ciyaalka ma dhahay ani hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tagay ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana ani xitaa cadeen muu haytaas in as qawli in ay kala tageen cadeen muu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulli wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkaynin saxna way taas wax walba adduunka waa ka dhaca arintana social media ay soo gashay social media waxay soo galaan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan qoldanahay hal mid aan galin ka bixnaa midaas oo in arintan markii koow ay cusbeed in aan rumaysan waayo ma ku indhaadaytay ma dadka yani runta yani waa ku indhaadayga laakiin maxamuud ana ku imaadi naagta aan qabto cadeen la'aan waxaan ku dhahay ana qabo ma aamini adi cadeen u baahan tahay maxamuud oo naagtadan ku dhagoosid may qalad u dhacaa kulubna aadan qadaa wa khayru khataa'un atawaabun ano khaladkaas ogaan u sameeynin araggan inta ka bixina khalad waa gali sababtoo haddii aniga dambi waxaas igu ahaan lahay anoo og aan aamusi lahay wallahi ilaahay il og aniga ma ogeen haddaan ogaan lahay qofka aamusay ma ii arinkan wallahi baa ma idin sheegay familkayga aniga marar badan ay dhaheen kamaal arintan sax waa ama sixran tahay adi ama lagu sixir ama lagu taatno waxaasna wallahi marar badan ay lahay waxaas ma ana waxa diida wax qiila waqaala yani waxaas ama tahay waxa og tahay ya aad hadal iyo xaqiiqi iyo marqaati u haysan yani adna aad hubin mala sheego waxa noqonay xan مفهمي صح إلهنا كل حساب طماعي هذا مو أوجد حالة قفك وجان كرد احتاجن مفهمي ضد بدن وأركان قلت إله الدين بيجن الله بمنتن مرجو حواي إلهينا وحواي غفور رحيم وعلي لكن قف هذا خلط في شيء أم يحس أهين أكوت المانتن مرجو قف كاسنا أتكت أسي وأقولاش وعفي موجي سكلم يعني إلهنا وعفينا إلهي تيسو كعفين كلا غفور رحيم مركا أنت ماشي سك أكتر مركا كمال هذا كله كبون بكنا أو شيء أورتا أنيجا
arintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq way taas ayadana afkeeda waa ka qiratay sababta ay u inkirtay waxaas ilaa hadda aniga ma ogi dad badan ayaa dhahay Kamaal gabadhan xaaskeyga waa yaas dhahay hadda ma xasameyn doonaa hadda ma xal gudboon marabi in social media aan ka sheego wixii aniga sameyn doono hadda kadib waxaan sameyn doono waxaas noqonaa waxyaabo aniga private ah wixii ila gudboon diinta ku saabsan ama diinta ku salaysan xaqana aan sameyn doonaa marabi social media inaan ka sheego balan waay anigana waligay xaqa u istaaga waligay qof mudulbin dooni waligay wax oo aniga arko inaas khalad yahay marku inda adeegi dooni sidoo kalena waxan hadii soo baxo hadda hal mid gudbo Maxamuud qofkan ciyaalka waa dhalinyar lahayd mid kale soo yeeri doonto oo private ahaan isoo gaari doonto waxay noqonaa xarig inaas ku xiran yahay ama ku xirneen wixii aan sameyn doonaan ku dhahay markaas diintas ku salaysan oo family dadka ma dad ma yani inta maxkamad ma aha dad la leeyahay dadka yani family-ga yani wixii la sameyn lahayd yani arinta private ahaanay laakiin waxa wala sameeyay insha Allah arintana sidoo kale dad badan ka soo hadleen taasna ogaan daraa u geesi haddii aadan wax ogeyn waxaan ka codsanaa walaalkay ama walaashay arintana ka soo hadleen adoo si wanaagsan wax ugu sheegi kara yani si qaldan ugu soo hadlay sax waa hadaadan yani ka hadli karina reaction-kaaga ka bixi iska dhaaf waxaan hadda views waaye adduunyo waaye ilbiriqsi waaye sikin waaye waa dhimane isla markii intay kaaga bilaabanay godkay kaaga bilaabanay sax waa marka waxaan damiirkaaga iyo qofka wixii oo isla markaas la soo dhaho yani aad ogeyn hal dhinac inaad soo qaadatid isla markaas oo qofkii ay iyo waxa loo joogay inaad kula dilacday ma wanaagsan wax qof weyn sameyn kara yani hor Soomaaliyeed waa u badanahay yani waa la isku qaadanaa laakiin ma wanaagsan qofka adoo wax fiican u sheegi kara yani ama iskaga aamusi kara maxaa caynay haddana arintan ma dhex joogtid يعني gurigii waxay ka dhacayaan ma joogtid marka maxaa caynay muxuu ka galabsaday marka wallahi aad ugu xumaa taas laakiin waxa waa caafiya waxa waa maadana waa ku celinaa ilaa dambigeena dhaaf cidii si qaldan u hadashay comment qaldan soo qortay cidii reaction qaldan ka bixisay ilaaha arkayo soo marka aan intaas ugu baxaya كمان نكسي ورجينا إن شاء الله مركا هذا بدن حام بحشو كلي أنا وحي حقيقة هو أوغاني وحي دبت وحي حقه وان أوغاني ما نفعنا أنا والله بين بدين شيء علوش وح عنكو خرصنا ما هستي وحن آت أقول حمادي إن أنا اللي يقول تلمام وقف وح أدونك أقول ليذن ما حكم كيس هذا فاهم لهن حكم كيس هذا فاهم لهن والله ممكن دق لهن يعني ما عندنا ويت هل سؤال يعني كفتنا حتى أوقات قفك يعني هادو سحر ساس باوركاس أسرية ضدك آمين سن هادو باوركاس سرية بيل جيتس كبدي سما أنا هذا السحر كوكانسل برا صحوة يعني بيل جيتس أما إسكدافة ضد كان تاجرين تقبله هذا ما السحر كوكانسل مرك عقلك عشقية وحلا فهمه معناه هادو قعمانا وحكو قرطوا لقوا حسابنا عربكم لقوا حسابنا والله أنت بدنا أركي كومنتي إيزو خراي كمال ساس إيساس هاي أنا دم بيدي هستي وإذا عفية وإذا ما فهم سنين وقال درا يعني وقال درا إدي هيسي ما فهم سنين يعني عافية لكن هذا كدي كبارن تجا مرك إن شاء الله كل فيديو نزول على مرة مهم ده هذا الكيجا أما قرانك هذا الكيجا وحسن قناع حد كدي wax social media arintan imaan doono ma jiro wixii diinta ku salaysan wixii xaq ah ani waan ogahay ana xalsanayo sheekada meesha ku dhamaadi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh